السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa 6 qof ee adduunka ugu yaabka badan leh ee ku dhashay jirkooda ceebaysan. Wiilka yeyga aragtida u horeysa wiilkan la arko qayb waa bini aadan qaybna waxa uu ka shabahaa yeyga. wiilkan wuxuu ka soo jeedaa dalka China waxana lagu naanaysaa Shambazi. dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay ka caawiyaan oo ka tirtiraan timahaasi balse waa ay awoodi waayeen. xanuunada noocan ah boqolkiiba 3 ayaa laga helaa dadka dunida ku nool iyadoo ay haddana kala duwan yihiin. sanka clownka amba muharrijka gabadhan yariiska ah ee 6 jirka ah waxay ku dhalatay iyadoo sankeedu cas yahay waxana loo arkaa maqaarkan casaanka ah inuusan ahayn wax saa u halis badan waxana la jarayaa kaliya qayb ka mid ah sankeeda lagumana tilmaami karo inuu yahay shay qosol ah. dhakhaatiirtii waa ay ku guuleysteen gabadh dheer inay ka tirtiraan calaamada dheer ee cas ee sankiina waxa uu ku soo noqday mid dabiici ah. wiilka shabahadiinka wiilkan yar ayaa waxa uu ku dhashay dhabarkiisa dambe oo saaran yahay harag madow mar walba oo wiilka yar koro waxaan dhabarka ka saaranna waa uu ku sii fiday. wiilkan yar ayaa waxa uu la kulmay culays iyo dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jeejees iyo inay caruurta ku caayaan. qoyska wiilkan yar dhalay ayaa waxay awoodi waayeen inay dhakhtarka geeyaan oo qalliin lagu sameeyo ilaa uu ka maqlay dhakhtarkan reer Britain ee lagu magacaabo Neil Bostrom. waa dhakhtar ku fiican xagga qalliinka iyo qurxinta wuuna ka kala khafiifiyay culayska iyo wixii saarnaa. wiilka astaanta casaanka ah sujuudda ku lahaa dhakhaatiirtu waa ay ku guuleysteen qalliinka wiilkan yar iyaga oo maqaarka jidhkiisa hoos marinaya maadooyinkaas oo cadkiisa ku sameynaya faalal amba ballaadhni muddo 4 bilood ah. intaana qalliinka lagu sameyn ka hor wiilka yar wuxuu u ekaa qaab si kale ah balse muddo kadib markii ay ka tulfujiyeen wixii saarnaa waxa uu u ekaaday shakhsi caadi ah. gabadha maqaarka loda lahayd Ivan waxa ay ku dhalatay buro yar oo xagga dhabarka kaga taal balse muddo kadib waxa ay bilowday in ay jidhkeeda ku sii ballaadhato. dhakhaatiirta ayaa ku guul daraystay daweynta gabadhaasi waxayna dhaheen burada yar waa dhaxaltooy oo waxay ka dhaxashay awowyaasheedii hore wax daawo ahna ma lahan. wiilka Chinese-ka ah wuxuu leeyahay wiilka yar Chinese-ka ah ee 8 jirka ahi calaamad weyn oo sidii buro oo kale ah oo qarisay wajigiisa qayb ka mid ah wayna ku sii korodhaa mar walba uu daahaan karo. waxa wiilka yar lagu daaweyn doonaa dhakhtarka qalliinka qurxinta ee lagu magacaabo Chanton wuxuuna yidhi agaasimaha dhakhtarkaasi xaaladaha noocan oo kale ah aad ayay naadir u yihiin. kamid noqo janaalka dadweynaha subscribe oo nagu soo biir waxaad inoo tahay tartar iyo dhiirigelin.